agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta koonfur galbeed injineer Cumar Xaaji ayaa xarunta laanta socdaalka Baydhabo ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana ay booqdeen qaybaha kala duwan xarunta xafiiska baasaboorada qaybta sawirada lagu qaado iyo xafiiska guud ee agaasimaha oo dib u dayactir lagu sameeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta cadaaladda xanaanada xoolaha ganacsiga oo booqashada ku tagay xarunta laanta socdaalka ayaa ammaanay isbedelka muuqda ee lagu sameeyay iyo joogteynta adeegyada loo hayo bulshada Soomaaliyeed. Cumar Xaaji agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta koonfur galbeed ayaa ka mahadceliyay booqashada maanta wasiirada ay ku imaadeen xaruntiisa wuxuuna xusay in tani ay qayb ka tahay isbedelka muuqda oo lagu sameeyay xarunta. Maxamed Xuseen Xasan John wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sharaxay muhiimadda booqashada. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Agaasimaha laanta saddexaad immigration-ka koonfur galbeed iyadan mahadsanyi soo dhaweynta oo sahnay dhawaay xafiiska immigration-ka magaalada Baydhabo Kiyaala iyo wasiirada saaxiibada oo geekuna booqanay xaruntan daban soo dhaweynka baadamay muuqata in oo shaqo fayle qurux badan lagu qabaday tan ilaa iyo markii uu kooy agaasim Cumar maalintii xil wareejinta roogni oo xilkal ka wareejiyay qaabkii in yaali xarunta qaabka geeka inta la muddo bila gudaasho waxyaabo oo eedlinka deeyda wana la amaano waana la ka aqoonsado agaasimaha shaqada guud oo muwaadiniinta koonfur galbeed guud ahaan Soomaaliland ka haya xaruntun oo immigration-ka mayba la erakoraha shaqo eedan qurux badan waxa aragnay meel waiting oo fadhiyaan dadka sugahay baasaboorada in la diiwaan geliyo aragnay qaybta maaliyadda aragnay qaybta diiwaan gelinta iyo sawiraanta la ka qaado daban gudaha xafiiska oo agaasimaha markii aad aragto waa xafiis eedlan diyaaray kaamirooyinka CCTV ka hirin markii aad fiir daban xafiis oo high standard shaqada ku dareertona may dareemasaha in eedan qurux badanto guud ahaan markii aad fiirida standardka wala shaqada iyo qaabka dadka la basijino isticmaalayaan waxyaabo lanka talagal uniform show iyo may dareemana in oo shaqo ku dareerto lan shaqo goradaan shaqada la dhiibi agaasime kuma hadnagaana in quruxsanaata shaqada xafiiskan mayba lamid ah in koonfur galbeed quruxsanaata in kuma hadnagaana mayna ki dhiirigeliyaan in oo timetable-ka iyo jadwalka shaqada lanku baaho ay kan la gala oo tusti in oo sidii lanka dhaqamo lanka shaqeey daban wasaaradda cadaaladda iyo waaxdan oo socdaalka shaqo weyn ku dhaxayta dhinaca madala fiiriyo baasaboorada dhumi iyo baasaboorada oo magacyaalka u qaldamay la bedelaaw meelaha marsay maxkamadoogaas markii had soo bixin tasdiiqas iyo cadayntaasay waa kaalin weyn u qaadayaan cadaynta iyo in oo la xaqiijiyo qofka baasaboorka lahay in qofku in kala marka wali horumar hay lagu deerin aragnay kormeerka una soo bini wali kale oo caqabada ay jarana dhamaan xalli doonna meel kulamo doonna gudoomiyaha maxkamadda sare oo mas'uulku ah guud ahaan maxkamado xeerasha shir duwan yoona iidan amaanayaan wada shaqaynta ku dhaxayta dhaleeyga yar daahitaanka yar la dareemahayana may dareemanaha ballan gudaaja inuna ka amarna in la xalliyo guud ahaan saaxiibada oo wada dareernayna may ka amaanay dhiirigelintii oo soo bixayaan dhalinyarada oo wal ku bedelka ka soo bixiyaan shaqooyinkii hore in dareeray hadii oo la ka wareeji guud ahaanna maadaama una magaaladan wada degana xasbooqdo doona xasfiiri doona adana fahmaakii azumane xafiisyada oo wasiirada dhalinyarada isbedelku ku dareera in aad fiirido qaasatan wasaaradaha meelaha xafiiska leeyahay oo wasiirada islaqaan ka dhisahayaan dhismo ku dareertay in aad koyto wali oo way aragnimo oo meel la ka shal faa'iido kor naftii in oo una aragna guud ahaan martada oo dadka geeka martada king hay wasiirada
oo wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiirka qorsheynta iyo wasiirka ganacsiga ku mid yihiin saadahan indhawaay tikiin kuma hadnagaan anoo afsho ka hadalaa ee afka guud ahaan golaha wasiirada koonfur galbeed Michael iyadana ma hasanto shaqada meel ku sii wad Hasan Kulmiye Afrah Puntland TV Baydhabo